caafimaadku waa shay qaaliya adduunka bini'aadankuna waa shayga ay u tartamaan. hooyo Saynab Cabdiraxmaan Jaamac waa hooyo ku nool magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. waxay haysaa wiilkeeda oo xanuunsanayay muddo ku dhow 2 sano. wiilkan yar oo lagu magacaabo Cabdilaahi Cabdirashiid Abakar ayaa waxa uu dhulyaal ahaa oo uu dhulka jiifay muddo ku dhow 2 sano. waxaana sida ay sheegtay hooyo Saynab Cabdiraxmaan Jaamac wiilkan yar maskaxda kaga soo baxay buro, taasi oo sababtay inuu gebi ahaanba indhabeelo. wiilkan yar ee Cabdilaahi Cabdirashiid Abakar, wiilkan yar oo muddo 2 sannadood dhulyaal ahaa ayaa waxa uu suurtagali weyday inuu kaco mana istaago, habeenkiina ma seexdo. hooyo Saynab Cabdiraxmaan Jaamac oo ah hooyada dhashay wiilkan yar ee gacanta ku haysa ayaa sheegtay in aan xanuunka wiilkeeda haya gudaha dalka waxba laga qaban karin, balse uu u baahan yahay in loo diro qalliin dabadeed. waxaana ay sheegtay hooyo Saynab Cabdiraxmaan Jaamac in wiilkan yar hadda ka hor dad muslimiin ay isku tageen oo ay lacagtii ka bixiyeen lagaga soo jari lahaa burada ka soo baxday dhinaca maskaxda, waxaana lagu guulaystay qalliinkaasi. waxaana la soo geliyey tuumbo ka bilaabmaysa ilaa madaxa soconaysana ilaa xubinta taranka bini'aadanka. wiilkan yar oo indhala ayaa dhakhaatiirta u sheegeen markii tuumbada la geliyey in lagaga saaro muddo 6 bilood ah, balse imika waxay ku jirtaa muddo ku dhow 2 sannadood, taasi oo sababtay in wiilkaa yar indhabeelo, mana socdo mana jiifsado habeenkii. Saynab Cabdiraxmaan Jaamac oo haysa 7 carruur ah ayaa sidoo kale waxaa ka jiran ilmo yar oo kale. hooyo Saynab Cabdiraxmaan Jaamac ayaa sidoo kale sheegtay in wiilkeeda Cabdilaahi Cabdirashiid Abakar ay bishii ku baxdo daawooyin qiimaha lacagtu ay gaadhayso $560, taasi oo reerkani aanay awoodi karayn inay lacagta intaa le ku bixiyaan bil kasta. waxaana ku jiraan sandaqad yar oo ku taala magaalada Hargeysa. كبعد جدا بمرة إسلام كان هاي مرة عدة واحدة إلا لا بريان جعد مسلم هذا ما وقف كده بحين لما معناتها ده هي لا استقرار هذا وخاصة جماعة الدول بيجتها. haddaba walaal, caafimaadku waa shay muhiima. hooyadan la dhibaataysan ilmaheeda in la caawiyaa. diinteena islaamka ee macaan ayaa ina faraysa mar kasta inaynu iscaawino, qofkii dhibaataysanna aynu dhibka la qaybsanno, maadaama aynu ummad islaama nahay. walaalkaaga muslimka caawi. caafimaadku waa shay qaaliya. maanta dad caafimaad qabto berri wada xanuunsan kartaa. qofka xanuunsanaya oo walaalkaaga muslimka ah soo caawi wixii aad awood.